just made this. Purchase your tracks today. labaatan sano iska daa 10 sano ka hor 5 sano ka hor fursadina ma jirto waa maya sooma waa chance ilaahayna siiyay wax kasta oo yimaada ilaahay xalkiisu keena waxaad saran kartaa waxa weeyaan caqabado badan oo jirta laga bixi lahaa marka Oblast Global aan ku soo noqdo ujeedkaygu wuxuu suurta galiyay in adoo gurigaaga jooga 200 wadan aad macaamiil ku yeelan kartid alaabada halkooda lagu geyn karo ay ka ganacsan karaan adiga laftigaagu meesha doonto joogaad ka ganacsan kartid suuqyada haddaba laga ganacsan karo oo walaashin raxmina ka sheekayn doonto maxaa kamid ah suuqyada halka idinka muuqda oo kala ah waa isqurxintii yaan isqurxinaynin in rabino isqurxiyo rag iyo dumar badde Sooma caafimaadka isaguna muhiim ah oo xitaa lacag lagu helin caafimaadka xitaa lacag ma goys fashion-kii isaguna ah isqurxintii kale ee ahayd haragadii oo halkan inoo buuxa alaabaduna waa daawan kartaan halkaas ay buuxdaa insha Allah dhow toolo qofkii raba uu kici kara waa taaban kartaa it's okay maxaa kale tii iyadoo daryeelkii korka oo ah shaambadii rag iyo tii dumarkii labadiiba isugu jirta waxyaalo badan faa'iido ka raxmaan u deynaya hawshaas ayadaasi fiican idinku qaada dhigaysa iyo tii online-ka intaba uu suurta galiyay industriyadan ama suuqadan aan ilaahay waxay ku fadhiyaan lacag aad u tiro badan hadda inteena dumar ee halka joogta hadaan weydiiyo makeup-ka la soo iibsado amaba waxyaalaha yar la marmarsado imsa la idinka siiya haddaad xisaabisaan bishii qarash badan ku baxay Sooma industry beauty wuxuu ku fadhiyaa waxaynan goyn kareynin health-gu ka daran yani wax kasta wuxuu ku fadhiyaa qiimo adigu marka inaanad ka qadin oo xaqaaga ka qaadatid ba la rabaa adigu hadii aad dadaalkeeda la timaadid okay inta waxaan kaga baxayaa company-gii iyo waxyaalaha uu suurta galiyay sida loo aasaasay iyo sidaad adiguna insha Allah uga warhayn doontid waxaynu si toos ah hadda ugu gudagalaynaa qaabka dhaqaale looga sameeyo company-ga ogaatay fahantay waxa uu yahay inta meeladu ka hawlgalo qaababka hadaba lacag looga sameeyo ama dhaqaale looga sameeyo in aad ogaataan ayaan rabaa wax yar inaad ka daba geeyo hadii Ilaahay ii qadar insha Allah anigoo idin soo ururinaya waxaan ka hadli doonaa waxa loo yaqaan compensation plan ama plan-kayga qaabka qofku dhaqaale u sameeyo oo tiro badan run ahaantii waxaan isku day doonaa in aan idin soo ururiyo waayo waxa weeyaan waxaan tiraahdaa sharax saacado dhan qaadanaya laakiin slide-da aan ka soo qaatay waan soo koobaya halka maxay idinka muuqda nambaro intiina si fiican wuxuu aragteen afarindooda hayn halka waxay idinka muuqda nambar Sooma maxaa halka ku qoran yahay sheegi kara waxaad sameyn kartaa weegii maxaa ku qoran 60,000 oo arday fiican ma tiidman ma leeyahay 60,000 oo ya dollar maxaad sameyn kartaa sanadkii hadii aad sidii loogu tala galay u shaqaysatid ilaa iyo 3 milyan oo lacag ah qofku markuu arko tirada halka ku qoran waxa laga yaabaa inuu waxani marun ba mariya moogt isweydiiyo laakiin wax jira oo run ah wax ma aha beena ama riya ma aha waayo dad baa jira ka sameeyay oo milyaneera company ku nool waxaynu dul istaagaynaa 12 daqiiqo ee looga sameeyay company-gan dhaqaale insha Allah aan idin soo ururinaysan hore idin ku sheegay dariiqada koobaad waxa loo yaqaan retail profit oo maxaa tahay waxa weeyaan waynu wada naqaanaa dadkeenii hore ganacsiga marka ay sameynayaan maxay sameyn jireen meel bay aadaan alaab ay soo iibsadaan waxa la oran jiray jumlad deedna way sii tafaariiqeen Sooma
tafaariiqda maxaa iyaga ula socda faa'iido qofku alaabta qiimo soo siistay hadhowna qiimo ku iibinayaa isaga jabnaan baa lagu siiyey qiimihii lagu siiyey qiimaana inbuu suuqa ku keenay faa'iidadii baa halkaa uga soo baxaysa tusaale yaroo kooban baa halkaa inoo yaala oo isla shay uun ka sheekaynaya hal shay tusaalahaasi waxa weeyaan bahasha loo yaqaano fountain of life oo halkaa taala insha allah dhowbeedun arki doontaan walaashii raxmani way ka sheekayn doontaa fountain of life waa product aad iyo aad u qiimo badan kamanigeygana ku qaaliya run ahaantii waydun maqli doontaan qiimaha uu nagu joogo annaka oo ku jirna ganacsiga ama xubinka ah iyo qiimuhu ku joogo qofka macmiilka ahi shaqo iskuma laha kaba soo qaad aniga waxay igu joogtaa quruuraddu $50 ayay igu joogtaa kaba soo qaad 70 baan ku iibiyey maxaan faa'iiday $20 soo ma ay halka iga soo baxay haddii aan 5 quruuradood iibiyo 5 macmiil leeyahay oon 5tii 20 ku dhufto maxaa faa'iiday soo xaroonaya aniga $100 soo ma $100 cid igu haysan ana shaqaystay waa faa'iido moogta sidoo kale haddii aad iibisid oo tiraahdid sanadkan ama bishan xitaa waxaad ku iibin kartaa alaabtan muddo yar oo kooban waxay ku xidhan tahay qofkii dhaqdhaqaaqiisa kaba soo qaad tusaale hoose in isticmaalana 40 quruuradooda 40 qof baa wax ka iibsaday wixii aad ka soo saartay 200 oo xabo ayaad iibisay 200 xabo waxaad ku dhufatay 40kii qof maxaa halkaa kaaga soo baxay $20 ee faa'iidada ahaa $4000 lacagtana waa Canadian saa la socdo horta waxaynu ugu xiga waxa loo yaqaan dariiqa lixaad oo loo yaqaan car club bonuska ama noqonaya dariiqo qofku gaari lagu ma siinay inta fara lagu dhiibo laakiin waxa lagu oranayaa waxaad u tartami kartaa wax aad ku heli kartid gaarigaaga paymentkiisii ama lacagtiisii aad ku bixin kartid tan toddobaad waxa weeyaan mid loo yaqaan rank advancement ama qofku markuu heer gaaro oo kale loogu sameeynayo in uu meelaha ama dalxiis lagu geeyo ama abaalmarin lagu siiyo ayada laftigeedu waa faa'iido kale tan sideedaad waxa weeyaan mid loo yaqaan options points qofku dhibca u ururayo dhibcaha u ururay ayuu ku helayaa fashion free fashionka halkaas ka buuxa oo idin wada arki doontaan insha Allah qaabka loo helana saan idin sheegay way tira badan tahay laakiin qofku markuu ganacsi ku jiro ayuu fahmi karaa wax easy weeyaan dariiqooyin kale tira badan baa jira oo lagu helo ayaga laftigooda oo ku fiican qofku markuu meel ku jiro inuu fahmo haddaba ogaatay qaabkii dhaqaale looga sameeyay kamaniga waad ila aragteen waxaan rabaa inaan wax yar idinka sheego qaababka loo soo gali karo ama dukaamada ka hadlaynay faa'iidooyinka kala lahaayeen iyo saado bilaabi karto laba mid baa jirta faa'iidadii maadaama aad aragtay ama inaad macmiil noqotid ama maxay noqotid ganacsade macmiil markaad noqotid faa'iidooyinka aad leedahay waxa kamid ah account free in lagu siiyo discount lagu siiyo marka soo wax iibsatidna ay ku ururaan waxa loo yaqaan options points oo aad ka iibsan kartid fashion free haddii aad qof keentana adiga dib lagugu celiyo waxa loo yaqaan shopping credit rebate oo aad ku helaysid wax bilaash ah okay tukaamadii baynu u galeynaa ama baan idhaahdo bashqadihii kamaniga lagu bilaabayay oo inuu horeysiinayno tukaanka loo yaqaan retailerka oo ah tukaanka u yar horeynu uga hadalay waa jumladaysta waxbaad jumladaysanaysaa waana tii tafaariiqeyn kartaa qiimaha lagu soo galaya tukaankan oo Canadian ah ee uu taagnaa waxay ahayd $425 laakiin qiimahaas hoos baa loo dhigay qiimo dhimistaas la sameeyay qofku dukaanka markuu ku bilaabo xubin ka noqdo wuxuu access u helayaa 200 ee wadan aan idin sheegay macaamiisha jooga oo aad alaabta la wadaagi karto alaabtana walaasha raxmayna oo sheegaysa insha Allah retailerka waxa ka duwan iyaguna laba dukaan oo la yiraahdo brand partner muxuu yahay qofku kamanigan sharaaka la noqdo sharaakadeen hada sheegneen waxa idinka taabtay weeyaan waxaad wax ku yeelanaysaa wixii kamaniga kii hore sharaaka mu ahayn laakiin labadan dukaan kale waa sharaako maxay keenay labadan dukaanka koobaad waxa loo yaqaan LP weyn ama lifestyle promoter loo yaqaano qofku markuu ku soo galo dukaankan waxa uu leeyahay qiimo dhimis ah 25% ayuu leeyahay waxa uu helayaa alaabtii kamaniga waxa uu helayaa wax loo yaqaan options points oo bilaash uu ku helayo fashionka halka idinka muuqday qurxoon dukaanka qiimaha lagu soo galaa waxa weeyaan Canadian dollars marka la eego 125 laakiin qiimo dhimis uu kamanigu sameeyay wuxuu ka dhigay 775 dukaanka kale isaguna xubinka ah ay noogu xigaa waxa weeyaan dukaanka loo yaqaan LA-ga ama lifestyle advisor-ka dukaankaas isagu leh qiimo dhimista 30% marka aad muddo ku jirto ee aad wadid wixiina aad faa'iido kale ka helaysid oo 10% oo kale aad helaysid kaasna run ahaantii markuu qofku kamaniga soo galo ayuu fahmaa waxaana weeyaan dukaan yacni aan idhaahdo aad u qiimo badan qiimihiisa wax kale maaha waxaad sheerarkii aan idin sheegayay xaq u yeelanaysaa in aad u tartanto oo kamaniga ka noqoto qof sheerkiisii wax kasta gacanta geliyo oo yiraahdo kana wax iga dhadhansi
okay dukaamada saddexdii waa kuwa waxa lagu soo galaa dukaankan qiimuhu jooga anaahde 2560 hadda laakiin muxuu marayaa lacagtuna xusuusta waa Canadian US dollar maaha waa 1870 Canadian weeyaan run ahaantii US marka loo bedelo waxay noqonayso ma garan karna hadda intaasi waa saddexda dukaan oo jiri jiray markii hore dukaankii ugu dambeeyay ayaa waxa lagu sameeyay cusboonaysiin in dadka looga faa'iideeyo iyadoo qiimo dhimis lagu sameeynayo hadii qofku 24 saacadood gudahood kaga faa'iideysto waqti baa lagu xidhay kan waqti baa ku tacalluqa qofka ku soo gala macmiil ahaan isdiiwaan geliya ee cinwaan ka sameeysta maxaa loo ogol yahay inuu 24 saacadood gudahood ku noqon karo dukaankii ugu sareeyay oo ahaa LA-ga faa'iidooyinka badanna ka soo xareynayay ganacsiga run ahaantii oo aad bixinayso waliba qiimokii ka jaban muxuu kii ahaa 1875 kani waxa weeyaan 1500 oo Canadian oo kaliyaad okay dukaamadii waad aragteen kambanigi waad aragteen waxaad hadda isweydiinaysaan sidee baan u soo tabin karaa waxan hadaan online ka aqoon boolahayn ka waran hadaan waxaan fahansanayba ka waran waxyaalo badan baa laga yaabaa inuu qofka maskaxdiisa ka dhex guuxayaan kambanigaygu markuu waxaan bilaabayay uu ogaa inay waxyaalo badan caqabadi jirayaan online kuna easy ma noqonayo mar walba ama aqoonin laakiin qaabkii loo soo tabinayay qaabku qofka teamka uga mid noqonayay qaabku ganacsigiisa heer u gaarsiinay asaguna heer uga gaaray intuba waxa weeyaan wax open global uu qofka ka gacan qabanayo ayadoo ay jiraan waxyaalo diyaar ah oo qofka loo diyaariyay sidii caash la cuno la kariyo lagu leeyahay cun oo kale lagaaga dhigay social media ka midtay kamaniga ka mid yahay waxyaalaha qoraalada uu soo diyaaray ama maqaalada uu diyaariyo bardhageedii everything ay ka mid tahay marka qofka hadda isweydiinaya madaxiisa ku taagan tahay oo kale anigu ma suuqeyn karo waxaan yacni in uuna noqonin cabsi joojisa waxaas qofkii oo dib u hakisa aan noqonin baan rabaa inaa idin sheego waxaan ku soo gabagabeynayaa oo kaga baxaya presentation-kayga insha Allah hadii Ilaahay qadaro qoraalka yar halka idinka muuqda timing is everything kamanigaygu markasta oo isticmaala wax kalena ma haweyn ogna waqtigu waxa weyn wax aad u qaaliya maxaa carabta maxay oran jiraan waqtiga sayf Soomaa iskuulka markay dhigan jirnay yareen hadaa jir weeyda isaga ku jaraaya waa seef oo kale haddaba gabdho Opulence Global Empire wuxuu sameeyaa beauty health care oo skinka ah waxa weeyaan wuxuu ka kooban yahay 5 cream waa day iyo night cleansing oo cleaning-kii ah Allahumma salli ala Muhammad lipstick-kii iyo under eye-gii intaaba waxa markii la sameynayay ee dadku isticmaaleen ay feedback ay soo celiyeen waxay ahayd anti aging dadka reer galbeedka inta badan da'da aad bay iskaga ilaaliyaan aad bay isku ilaaliyaan ama exercise ha noqoto ama cuntooyin health care ay cunaan ha noqoto marka feedback ka soo noqday kreemadan ayaa kausgareeyay in dawada fountain of life na la soo saaro waayo maado ku jirta oo herbal ah oo ka samaysan geed Norwegian spruce tree la yiraahdo oo ka baxa dalka Norway ayaa laga sameeyay taasaana kausgareysay in fountain of life la sameeyo haddaba Fairy Flawless brand kan la yiraahdo because waad garan kartaan brandadu way badan yihiin annaga brandkayga waxa la yiraahdaa Fairy Flawless haddaba how many celebrity ba xidha over 300 celebrity ayaa xidha oo red carpet-ka ku mara all over the world taasina waa taas wuxuuna establish garoobay Fairy Flawless 2006 haddaba testimony-ga aan idin sheegay waa kaas Fountain of Life ayaan ka hadli doonaa Fountain of Life horta waa dawo aslan dhibic oo u taala qaab dhibic dawadan sida loo sameeyay iyo sida loo qaato waa waxa ugu horeeyay horta laga hadlo waxa faa'iidada ay leedahayna dib baan uga hadli doonaa saddexdaas su'aalood ma ka jawaabi doonaa dawadan waxa ku jirta dawo la yiraahdo phytonutrient-ku markii hore waxa ay ku jirtay diet-ka qofka ama waxa uu qofku qaadanayo laakiin hadda kuma jirto saadaradeed waxa ay ka samaysan tahay phytonutrient dawadan waxa la yiraahdaa waxa la qaataa halkii dhibic waxa loo qaataa 10 kilogram marka haddaba hadii miisaankaagu yahay 50 kilogram kaba soo qaad waxa aad qaadanaysaa 5 dhibcood dawadan siyaabaha loo qaato waxa kamid ah in la mariyo skinka
ama meesha dilaacsan nabur soo gaadhay ama meesha kale infectionku ka jiro waxa ka mid ah oo kale in dawadan haddii loo isticmaalo meel nabur kaaga yaallo inay dedejiso ama ay caawiso in meeshaasi hore ay u bogsato dawadan waxa kale oo loo isticmaalaa finanka ka soo baxa wajiyada loo yaqaano findoobka ama akniga ayaabay baabiisaa ama yaraysaa dawadan inta dibadda loo isticmaalayo inta waxa la yiraahdaa kale waxa soo raacay in hemorrhoidka ama mabaasiirta sida ay u taqaano ay yarayso infectionka ku imanaya haddii qofku mabaasiir leeyahay oo kale ay dedejiso in ay heal garayso ama ay ka daweyso ama ay ka yarayso caabuqa dawadan waxyaalaha kale ay caafimaadka muhiim u tahay waxa ka mid ah inay ka hortagto kansarrada qaar sida kansarka ku dhaca colonka ama large intestine-ka ama xiidmaha weyn sida u taqaanaanba waxa ay ka hortagtaa cawaaqibka macaanka yani cawaaqibka dad kale macaanka ay ka hortagtaa waxay ka hortagtaa in qofka macaanku uu dhaawaco indhihiisa dareen wadayaashiisa iyo kaliyihiisaba waxa ay kordhisaa immune systemka ama habdhiska difaaca jirka waxa kale oo ay dawadani recommended aanay ku ahayn ama aan la siin karin islaanta uurka leh gabadha uurka leh lama siin karo iyo ilmaha 12 jirka yar marka dawadan fountain of life waa dawo muhiim ah xataa adiga laftaada markaad gasho website-kooda waxaad arkaysaa fountain of life the only one waa dawada keliyata ee meesha ku jirta aad iyo aad baad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigu waxaan idiin sheegayaa aan idinku kordhinayaa sababtii aan kambanigan ugu biiray iyo waqtigaan ka soo biiray iyo wixii aan ka faa'iiday sida runtiya kaasoo ahaa sharoobadan dabiiciga ah ee fountain of life waxay ahayd waqtigii maasha allah tabaarakallah lug aan ka kufay 8 sano ka hor ayaa alxamdulillah rabbil caalamiin isoo kacdoontay saynu naqaano af Soomaaligeena 3 bilood iyadoo lugtu ibararsan xanuun garaac farabadan oo ka kici kari waayay ayaa waqtiyada kamida walaasheen rooda ay Facebook-geeda soo dhigtay iyadoo ka hadlaysa inay iyadu isticmaashay aabaheedu isticmaashay hooyadeedu isticmaashay iyadu isticmaashay dad farabadan oo kale ay ka marxaati kacday maadaama ay liidara tahay ayay soo dhigtay screenshot baan ka qaaday marka xiriir lama lahayn rooda 14 sano ka hor ayay isugu kaayay dambeysay alxamdulillah social media hanu isugu soo dhawaanay anagoo dhinacna family ka asda runtiya alxamdulillah rabbil caalamiin screenshot markan ka qaaday walaalo ila dhashay oo caalamka joogan ku dhibal bahasha ay keena lugtiyaan ka kici waayay si ay wax iigu qabato waxaan moodayay shay tukaan yaala oo laga soo qaadayo sida runtii oo la iibinayo maaha ayaa la igu yiri waanu weynay bal halkii aad ka heshay ka doon adigoo dib ugu noqo walaashay baan messengerka u galay walaashay waxa ii xaqiijisay inay tahay shay insha Allah ta'ala de kambanigu iibiyo sida loo heliyana dadka iibiya aad ka heli doonto walaashay raxmo iyaduna joogtay oo Mareykanka iimaneysay igu tiri 2 week kadib way iimanaysaa iyada ka iibso anigu alxamdulillah maalintii 2 week kadib ay raxmi timi raxmi markay timi waan ka doontay habeenka roob badaayay raxmad farabadan ma sha Allah 3 bilood maan kicin cidna igama dhaarsanayso xaqiiqan idinku la hadlaya inantaa waanu tagay anoo gaari la igu sido marxaati bay ka ahayd oon ka dagi kareynin gaariga oo la caawinayo xamaamka qolkayga igu yaala maan gali kari jirin ilaa 2 qof gacmaha ay qabtaan habeen oo dhan xaajiga ay siday ilaahay ka jazaaysiyo maalin oo dhan carruurtayda ay waday alxamdulillah rabbil caalamiin ilantii markaan ka soo iibsaday waxaan ku iiga iibi waxay ku tiri walaal waa qaaliyo waa $70 waa goojada aad arkaysaan wixii tayo laba horta qaali ah lacagtana waxa la inoogu tala galay inaynu ku takrifalno baahiyaheena ku daboolano asaasiga ah wax far badan bay inaga bacdaa lacag simple ayay inaga baxa habeen baynu ku casho tagnaa waa wax jira waxaan ku yiri 2 xabba ii dhiib 2 xabbaan ka soo qaatay habeenkii markaan cabay 10 dhibcood lugtii xanuunaysa waa taa midigta kama tukan jirin 7 sano alxamdulillah rabbil caalamiin kursi baan ku tukan jiray waxay noqotay alxamdulillah inuu ilaahay iigu gargaaro habeenkii koowaad ba waxaan helay hurdo inantaydii habeen iyo maalin
markaynu caafimaad qabno hurdadu waa wax inagu kooban habeenkii markaynu xanuunsanaynana waa wax aad sida runtii habeenkii u farabadan yahay ninkii xanuunsaday baa garanaya iyo qofka qof xanuunsaya haya alxamdulillah xaajigina wiila cabay isna dhinacaasun buu dhacay ana dhinacaasun baan dhaco salaadii subax ma nidhi maxaa halkaynu galnay alxamdulillah rabbil caalamiin maanta waxaan kaga tagay waxa waaye haddaaysan walaashana kaa way ka dhawaajisay soomaali waxay tiraahdaa talada waa maraad garan weydo iyo maraad gaari weydo horta reer Hargeysa waxaan ugu hambaliyeenayaa in allaale inta soomaali meel kasta dunida ay yani wadamada soomaalida oo dhan ay degaan waxa reer Hargeysa waxa waaye dadkii ugu horeeyay 2 sano ka hor markii insaan oo kale gabdho walaalaheena ganacsiga keeneen dadkii ugu horeeyay oo qaatay adinka saldhig u noqoteen maanta walaalaha Soomaaliyeed oo meel kasta joogo inay gaarto marka taasi si gaar ah hambaliyeenaya maasha Allah tabaaraka Allah saddexdii qof rooda raxma iyo ikraam baan doonayaa inay soo fadhiistaan si wixii su'aala aad u weydiisaan khadar waxaa ka codsanaya mikrofoonka kale inuu isticmaalo oo qofkii su'aal qaba uu siiyo su'aalahan waxaan rajaynayaa insha Allah inaad si yaro kooban aad wixii su'aal aad fahmi weydeen ama idinkaga jiro aad u weydiisaan hadhow toole fadlan wixii la kala iibsanaya ama wixii la kala qaato halkan noo soo fadhiista waqtiga ciriiriya halkan fadlan soo fadhiista waqtiga inagu ciriiriya rooda raxma iyo ikraam fadlan halkan soo fadhiistaan waqtiga ayaa nagu ciriiriya intiina halkan fadhidaan waxaan rajaynayaa wixii su'aala ee aad qabtaan ee intii laga hadlayay inaad nala wadaagtaan si ay idinka jaahil saaraan oo idinku faahfaahiyaan mikrofoonka kale qadar ayaa idin dhiibi doona cid su'aal qabta horta ma idinku jirta safkan wax su'aala waa sax inantan marada cad iyo marada cas xiran koonaha soo fadhida magaceeda aanan garanayn fadlan u soo dhiib Allah aad baad u mahadsantahay sida xalfad noogu soo casuumteen su'aashayga ku weydiinaya waxa weeyaan haddaan sidaa kambaniga ku soo biirba processkan maraya sideen ugu soo biiri karaa intay igu qaadanaysaa inaan soo biiro maxaa la igu xidhay la iga baxaya السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم magacaygu waa Sahar Ismaaciil waxaan weydiinayaa walaalaad mahadsantihiin waa maxay farqiga u dhaxeeya labada shaambo ka dumarka iyo ka ragga noo sheegteen mahadsantihiin kambanigan markaan ku soo biirayo ugu yaraan lacagta aan ugu yarahay aan ka soo gali karaa waa intee waa qodobka koobaad qodobka labaad aan weydiinaya waxa weeyeen qodobka labaad aan waxa weydiinaya waxa weeyaan markay kalmanigu alaabta aniga ii keeno aan alaabtii iibsadon alaabtii iibiyo lacagtii aniga ii soo xarootay faa'iidada ay ahayd ma kambanigi baan dib ugu celinayaa mise anaa la hoowan haysanaya waa hagaag saddexdaas su'aalood baad insha Allah uga jawaabi doontaan su'aasha koowaad waxay ahayd shuruudaha kambaniga lagu soo gelayo oo inantaasi ayna weydiisay su'aasha labaadna waxay ahayd kala duwanaanshaha tasaddexaadna waxay ahayd lacagta ugu yar ama xaddiga dhaqaale ugu yar aan ku soo gali karayo iyo su'aasha ugu dambaysa oo ahaa productiga uu kambanigu soo saaro hello assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat walaashaydaas su'aashii ay weydiisay ee ahaa sidee kambanigan loogu soo biiri karaa sida runtii kambanigan sida loogu soo biiri karaa waa wax aad u simbala sida runtii maadaama maanta adduunku tiknoolajiyadu wax walba inoo fududeeyeen adigoo halkaa jooga shuruudda lagaaga baahan yahay waxay tahay koow ID cardkeena Brian Bankana waxaad ka furanaysaa akoon insha Allah tacaala akoon markaad ka furto akoonka waxa lagu furaa $15 wax badan maaha lacagta aad ku soo galayso 3 darajo weeyaan darajada ugu hooseysa oo 275 Canadian ah iyo ta dhexe oo ah $640 oo Canadian ah mar walba way isceliyaan Canadianka iyo dollarku ta saddexaad oo ah $1,500 oo dollar imikana markay lacag u isbedeleen noqotay $875 Canadian ah sida runtii saddexda darajo ayaa horta loogu soo biiraa sababta waxaan sida loogu soo biirayna waxaan ku waxa lagu xidhayaa ID cardkeena iyo $15 Brian Bank aad akoon ka furato sidaas markaad intaas soo dhamaysato Hargeysa gudaheeda 1 day bay qaadataa ama 2 days kadib waa lagu duwaan gelinayaa anigoodii timi ayaa ku duwaan gelinaya isla habeenkaas inkastoo inuu habeen iyo maalin kala nahay Canadian halku inagu gobolku inooga dhaco iyagu waagu u bariyaa
marka insha allahu tacaala waa wax kugu qaadanaya 3 days ugu badnaan haddii kale waa 2 days insha allahu tacaala sidaasana loogu soo biiraa aad baan isii bilow tahay su-aashii labaad ee ahayd differentka u dhaxeeya labada shaambo walaasheen rooda ayaan siin doonaa biidni illaahi tacaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مر لبعض وسؤال آد وقيمة بدن رنهانتي سؤالات ويديسين آد بدك مهتنتين وحكا لي أنت نتبع عنه لقي سنيسين سؤال ولا شيء ويديسه هاد فرق كشامبو ودحية وحي وحويان وحكا لماها شامبو رجع لوجود هلا قال الشامبو أنا دمركا ميت كستا مكونات قارب وكوبين هي شامبو قرقو رنهانتي مكونات كوبين ولا شيء وحشيخ ترح مثلا يابان وحكوكا أو main ingredient كيسو يهي geedkeeni spruce tree ee ku jiray goojada dabiiciga fountain of life kan kalena uu ku jira waxa ku jira amino acids baa ku jira waxa ku jira vitamins baa ku jira protein ku jira timo u fiican oo wanaajinaya labadaba farqiga kaliya u dhaxeeya waxa weeyaan makawnaad dheeraada ayaa lagu daray shaambada dumarka oo ah olive vera bahasha loo yaqaan ama badacarta iyo vitamin loo yaqaan biotin oo hadda baadhood google ka geliso biotinka dumarka oo dhan baa isticmaala si ay timaha iyo cidiyaha ugu bixiyo waa vitamin gaara oo gaar loo isticmaalo supplement gaara maxaa loogu daray dumarku timahoodu inay baxaan bay jecel yihiin gabdhihi yar isku mid ma arag halka ka jarayaan dumarku way bixiyaan marka biotinki inuu dumarkii timihii u bixiyo ayaa loogu talagalay oo loogu daray dacartii labadaba inta kale laakiin way ka sameeyeen makawnaadka kale ee ku jira dabiiciga ah waxa kale oo ka maqan wixii chemical ahaa ama fillers loo oran jiray shaambooyadeenan ee paraben iyo sulfate ka ahayd ee timaha jajabka iyo go'itaanka u keenayay insha Allah taala su-aasha ugu dambaysa ma ogina walaasha raxmi ku soo gaadhay ee ahayd su-aasha mid waad ka jawaabta qiimaha lagu soo galo laakiin faa'iidada kambanigu waxa aan ka sameeyo ma aniga ayaa qaadanaya mise kambaniga qaadanaya walaasha raxma ayaan jecelahay in su-aashaas ka jawaabto bismillaah maya mar kasta walaalo faa'iidada aad ka hesho kambaniga amba ha ahaato lacagtan adigu aad markaad iibiso aad dul saaranayso sida goojadoo kale walaasheen rooda inoo sharaxday marka aad konton siiso adiga laga siiyo 20 si dul saarto adaa leh faa'iidada ta kale ee online-ka ee haddii uu qof ka iibsado uu online-ka ka iibsado commission baa jira adiga ku soo dhacaya taana adiga leh mar kasta